بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku soo jirnay kitaabkii minhaajka ee uu qoray imaamu nawowi raxmatullaahi tacaala calayhi ee fiqiga islaamiga ah, rubicii afraad ee ugu dambeeyo la yidhaha jinaayaad ama jiraaxo ayaan ka soo hadlaynay. casharkeennu maanta wuxuu ku saabsan yahay dowladda islaamka haddii mucaarad ay yeelato waxaa la yidhaahdaa bugaad ayaa la odhan jiray isdilaaxii hore. kuwaas iyo sida loola dhaqmayo ayuu casharkeennu maanta ayuu ku saabsan yahay. kitaabulbugaad, kuwii yacna dulmiga sameeyey kitaabkiisii, jamcu baaqin weeye, min bagaa dalama wajaawaza alxadda ayay ka timid. dulmi buu sameeyo xaddii buu gudbay, taas yacna ayay ka timid. laakiin sida asaxa ah yacna baqyigu bugaad marka la yidhaah ma aha hay ma aha oo ismu dammin ma aha sida asaxa ah. maxaa yeelay imaamka markay khilaafayaan waxay ku khilaafeen ta'wiil, bimacnaa sabab ayay haystaan oy leeyihiin saasaan ku khilaafnay, oo ictiqaadkooda ay isleeyihiin sax baan nahay, yacnaa khaladba ha ahaadeen. saa darteed ayayna cay yacna ayaynan u ahayn. axaadiista soo aroortay marka qofkii oo dowladda mucaarad ka noqda cayda ugu soo aroortee faraha badan, taa macnaheedu culimmadu waxay ku fasireen waa qofkii wax ta'wiila isagoon lahayn iyo wax sababa isagoon lahayn, ama sabab oo baatilah oo dadku ay iska wada garanayaan yacnaa sabab ka dhiganaya, kaa weeyaan midka oo axaadiistu ay ku soo aroortay oo dembiga ah. aangalla marka bugaadii marka hum buuri sheekhu bugaadu mukhaalifu limaami, imaamka kuwa khilaafay weeye, imaamka muslimiinta. marka waxaa meesha ku jirta hum muslimuuna, iyagu waa muslimuun ee murtaduun ma aha, oo axkaamtan soo socota murtadku ma leh. mukhaalifu limaami oo imaamka khilaafay, imaamkana waxaa loo jeedaa imaamka muslimiinta oo dhan, khilaafada khaliifka ah kaas yacni ayaa loo jeedaa. ka dowladda oo markiiday dowladihi ay kala googo-eenna wuu iska noqonaya. marka imaamkaas kuwa khilaafay weeye. maxaa yeelay walow imaamku jaa-irba ha noqdee, laakiin hadduu shareecada islaamka uu waafaqsan yahay, shareecadiina uu oogayo, waxa weeye isagu marka ayuuna ku dhaqminbe, waxa weeye kaas in laga baxo ma bannaano. in laga baxo taasi ma bannaano. maxaa yeelay allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. laakiin waa markii oo arrintu ay suganto oo isagu gacanta waddankao dhan uu ku dhigo oo dadkao dhan ay ka amar qaataan, kaas yacna weeyaan. marka kaas in laga baxo ma bannaano. laakiin salafkii hore maalan waxaa soo aroortay xuseen binu cali oo kale, nabigu awowgu u ahaa raxmatullaahi tacaala calayhi, inuu ka baxay, iyo ibnu zubayr iyo in kaloo fara badan oo salafkii ka mid a yacna inay madaxii markaa joogay yacna ay ka baxeen. taasoo kale yacni cudurdaar bay lahaayeen oo daliil yacni ayay haysteen. mukhaalifu limaami, imaamka kuwa khilaafe weeye, bikhuruujin ka bixid calayhi calaa daacatihi, daacadiisa ay ka baxaan kuwa ku khilaafay, iyo wa tarkil inqiyaadi, u hoggaansan oo ay ka tagaan, oo imaamka ay u hoggaansamaan oo ay ka tagaan. ow manci xaqin, xaq diidadii, xaqa oo tawajaha ku soo jahaystay calayhim iyaga, oo sakadii bixinteedii ama xad laga oofinayo ama qisaas laga oofinayo, kuwa diiday weeye. bishardi shawkatin, awood inay leeyihiinna waa shardi, lahum iyaga yacni awood inay u sugnaatay. ama haddayna awood ayna lahayn, kuwaas yacni xukun kale oo qaadicu dariiq iyo wax lamid a ayay yeelanayaan. wa ta'wiilin, ta'wiilla waa inay haystaan, bimacnaa sabab yacni waa inay haystaan oo aan baadil ahayn oo sabab ay uga baxeen waa inay haystaan. sidii oo qoladii cali bin abi taalib raxmatullaahi tacaala calayhi kasoo horjeedsatay oo kale, oo asxaabta qaarkood ahaa oo
sidii mucaawiye iyo oo waxay uga soo horjeedsadeen waxay lahaayeen yacni cali wuxuu og yahay dadkii dilay cuthmaan binu cafaan wuuna awoodaa inuu dadkaas maaragtay laga aargoosto sidaas ayay ka dhiganayeen marka saxna mayna ahayn oo dee cali bin abi taalib dadkii dilay yacni muuna ogeyn marka sababkaasi haysteen wa mudaacin wa bishardi mudaacin mid la adeeco inay leeyihiin baa shardiga fiihim iyaga dhexdooda marka qof la adeeco madax u ah haddayna lahayn marka iyagana xukunka soo socdo buqaada ma yeelanayaan maxaa yeele awood ma leh dadku kol haddayna madax lahayn qiila waxaa la yidhi wa imaamin mansuubin imaamna waa inay leeyihiin mansuubin oo la dhisay oo iyaga xaggooda laga dhisay ama haddayna ra-iis lahayn oo matalan kasoo qaad waa qabaa'il oo kaleo wax ra-iisa male iyagu haba kala amar qaateen taana iyadana waxa weeyaan xukunka soo socdo ma leh oo buqaad ma noqonayaane dad kale oo idibdarre sameeyey unbay noqonayaan walow adhara hadday muujiyaan qowmun qolo ra'yal khawaariji nimanka khawaarij la yidhaah ra'yigooda hadday muujiyaan oo maxay weeye khawaarijta ra'yigoodu ka tarkil jamaacaad jamaacooyinka oo laga tago oo dadka aan lala tukanin iyaga uun mooyeen iyaga jamaacadooda mooyeen jamaacooyinka keliya masaajidda kale ayna ka tukanin wa takfiiri dii kabiiratin dembi kabiire ah ka u saaxiibka oo lagu gaalnimo xugmiyo oo la yidhaah waa gaal mid wax dilay ama zinaystay ama wax sameeyey hadday haddaba ra'yigoodu waa kaase qola hadday ra'yigaasoo kale muujiyaan oo walam yuqaatiluu ayna la dagaalamin dadka oo ehlu cadliga ah ee dowladda markaa taageersan ayna la dagaalamin turiku waa laga tegayaa oo markaa loo banbixi mahayo maxaa yeelay dee laguma gaalnimo xugminayo maadaama aan lagu gaalnimo xugminaynin yacni sidii cali bin abi taalibba uu uga tegay ayaa looga tegayaa oo cali bin abi taalib ilaa dagaal arrinta ay ka gaadho yacni wuu ka tegay oo muuna yacni la dagaalamaynin way iska joogeen wa ilaa hadday inala dagaalamaan oo ayna ina daynin ama inaga awoodeennaba ayna ku sugnayn fa qudaacu dariiqin kuwaasi waa qaadicu dariiq xukunkoodu oo qaadicu dariiqa sida loola dhaqmaa loola dhaqmiye kuwaasi iyagu yacni buqaad ma aha noocaas marka buqaadii u noqo oo ta'wiil la haysatay sabab ay dowladda kaga baxeen imaamna lahayd awoodna lahayd saddexda kuwa marka see loola dhaqmi wa tuqbalu waa la aqbali shahaadatu lbuqaad kuwa buqaadi ee dowladda kasoo horjeedsaday makhraatigooda waa la aqbali ninku hadduu baaqi yaho makhraati kaco makhraatigaa waa la aqbalayaa maxaa yeelay dee wayna waafaqsan yihiin xagga islaamnimada ee dowladda unbay yacni ayay ku kacsan yihiin wa qadaa'u qaadiihim qaadigoodu wuxuu xukumana isagana waa la aqbalayaa fii maa yuqbalu waxa la aqbali fiihi isaga qadaa'u qaadiina qaadigeenna xukunkiisa wixii la aqbali lahaa ama qaadigeenna xukunkiisa wixii aan la aqbaleen oo naska xadiidka iyo qur-aanka khilaafsan ama ijmaaca khilaafsan ama qiyaaska khilaafsan kaa isaga dee lama sugayo ee sida qaadigeenoo kale unbaa loola dhaqmaya ilaa an yastaxilla inuu bannaysto mooyeen dimaa'ana innaga dhiiggeenna iyo xoolaheenna inuu bannaysto mooyeen marka bannaysashadana waxaa laga wadaa buqaadu oo kuwa dowladda ka kacsan dee waa kuwa iyagiyo ciidamadii dowladda dagaal baaba ka dhexeeya laakiin bannaysashada waxaa laga wadaa oo iyagu waxay u dagaalamayaan yacni dulmigaan zuulinaynaa bay leeyihiin laakiin dadku waa gaalo ma laha dadku waa gaalo ma ay laha marka ilaa an yastaxillada waxaa loo jeedaa dadka inay dhiiggiisa bannaysanayaan oo qofkay meel ku arkaanba iska dilayaan oy leeyihiin maadaama kani dowladda uu la socdo dilkiisaa bannaanba aslanba ee looma jeeda dagaalka iyagiyo dowladda dhexdhaca dee dabcan waxay u arkaan kaa iyagu inuu bannaan yahay u arkaan kaa lagama hadlayo waxaa la sheegayaa dadka caadiga markay qabtaan inay kurka ka jarayaan qof kasta oo maaragtay dowladda taageersan ilaa an yastaxilla dimaa'ana iyo xoolaheenna inay bannaystaan mooyeen markaa mooyeen oo markaa iyaga wixii ay xukumaan iyo wixii ay maadaama hadday dhahaan inta kale oo dhan gaalo weeye markaa xaaladoodu yacni si kale noqonaysa wa yunafadu waa la fulin kitaabuhu qaadigoodu warqadda uu soo qoro bilxukmi xugun uu soo qoro innaga uu inoo soo qoro waa la fulinayaa
haddii qaadiga goobahay haystaan iyagu nin qaadi ah haddii uu xugum rido oo laba qof oo isqabsatay uu kala bixiyo xukumkiina innaga uu inoo soo diro yidhaah hebel hebel oo meeshiina jooga waxaaya waxaasaa lagu xukumay xukunkaa waa la fulinayaa maadaama uuna khilaafsanayn diinta oon ognahay nimankani diin ahaan inana isku diidanayn siyaasa ahaanun dowladda iyo imaamka inay diidan yihiin wayunafadu waa la fulin kitaabuhu qaadigooda warqaduu soo qoro bilxukmi xukumka uu soo qoro innaga uu inoo soo qoro maxaa yeele wuu bannaan yahaa nidhi wayuxkamu waa la xukumi bikitaabihi warqadaa uu soo qoray bikitaabihi qoridiisa bisamaaci lbayinati makhraati dhegaysigii uu qoray iyadana waa la xukumayaa fil asaxi qawi haddii aan qaban taa hoga xugun bay ahayd xugun uu isagu gaadhay oo uu soo qoray oo uu leeyahy hebel hebel oo meeshaa jooga waxaan ku xukumay waxaa marka waa la fulinaya waa lasoo qabanaya tan laakiin sidaa ma aha waxa weeye makhraati buu dhegaystay nin meeshuu jooga ayaa makhraati soo oogay nin meesha dowladda jooguu makhraati ku soo oogay makhraatigiina uu dhegaystay waana makhraati caadil oo shuruudii oo dhan laga helay markaasuu deedna qaadigii meesheenna jooguu warqad u soo qoray oo yidhi hebel hebel oo meeshaaga jooga waxaa soo dacweeyey hebel hebel waxaana wuu ku soo dacweeyey makhraatigaana wuu ku soo ogay makhraatigiina waan dhegaysto hebel iyo hebel ah intaasuu soo qoraya marka intaa soo qoro qaadiga meesha dowladda jooga markaa wuu xukumayaa makhraati dambe uma baahno xukunkaasuu ridayaa markaasuu deedna dadkii kala saaraya ilan diin iskumay diidanee siyaasaddii unbaa la isku diiday walow aqaamuu hadday oogaan buqaadii xaddan xad hadday oogaan sidii xaddii zinada ama xaddii oo khamrada ow akhaduu ama ay qaadaan zakaatan maal zakaatan zako dadka ay ka qaadaan wa kharaajan kharaaj ay qaadaan kharaajka waxaa weeyaan dhulka waagii hore iyagoo gaala joogto inta la furtay deedna dadkii loo dhiibay hayey oo la yidhi ka shaqeeyo wixii kasoo baxana intaan idinku qaata intaana annaga hele kharaajkaasaa la yidhaha walow waaga dambe haba muslimiin oo dad muslimiin haba noqdeen xukunkaas yacni wuu soconaya oo dhulka maadaama muslimiintu iskiliho mujaahidiintu ay lahaayeen oo ay ka dhigeen waqaf akhaduu hadday qaadaan nimankii buqaada ahaa zakaatan zako iyo wa kharaajan dhulkii ujradiisa iyo wa jizyatan jizyadii gaalada laga qaadaya gaalada muwaadiniinta ah ee waddanka muslimiinta degan jizyadii laga qaadaya haddii ay qaadaan oo wafaraquu ay kala geeyaan oo qaybiyaan sahmal murtasiqada ciidamada caadi ciidamada waxaa la yidhaahdaa ciidamada oo difaacu shacbi maaragtay aan dowladda ka qaadanin lacag duulaankana ka qayb gala ayaa murtasiqa la yidhaha murtasiqa waxaa loo yidhi xoogaa risqi baa la siinaya oo wafaraquu ay kala geeyaan oy u qaybiyaan zakada sahmal murtasiqada sahmigeedii calaa jundihim ciidankooda ay u qaybiyaan saxa arrintaasi way asaxaysaa wuuna fulayaa oo markii oo dadkay zakada ka qaadeen waraaqihii zakada lagaga qaada iyo caddayntii iyo kii jizyada laga qaada iyo dhulka muslimiin dhulka dowladda markay yimaadaan oo caddayntii ay la yimaadaan mar labaad lagama qaadayo maxaa yeelay ta'asiyan bicaliyin karama allahu wajhahu yacni cali bin abi taalib baa lagu dayanayaa oo sidaa samayn jiray oo qoladii ku kacsanayd waxay qaadaan oo dhan tixgelin jiray midda kale dee dhibaato dadka raciyadda ee shacabka dhib baa u iman lahayd haddii qoladana tiraa ma aqbalayno qoladana ma aqbalayno oo kii meeshan sakada lagaga qaaday xagga markuu u guura sakadii laga qaado saa darteed ayaa waqtigii cali bin abi taalib uu sidaa u yeelay midda kale ciidankoodu dee ciidanka muslimiintu ka mid yaho hadday gaalo waddanka kusoo duusho dagaalkay dhinacooda yacni ayay ka gelayaan ama duulaan lagu qaadayo dhinacooday ka gelayaane waxay diidan yihiin oo keliya nidaamka unbay diidan yihiin ee qaabkan hadda mucaaradkan dowladaha oo kale oo dee iyagu indhala-aanta ku socdo oo waxay xiirinayaan aan jirin oo wax diinoo xidhaysa ayna jirin kuwaa lagama hadlayo oo kuwa dowladdiiyo kuwa kalaba aan midnaba yacna maxaa ilaahay yidhi muxuu rasuulku yidhi midna aan odhanayn kuwaa lagama hadlayo dad diin isku haya oo le ninkani sharcigiibuu ka baydhay iyo ninkani sharcigiibuu ka baydhay kaasuu kitaabku ka hadlayaa ee kuwan hadda jooga warkoodu si kaluu noqonaya wa fil akhiiri ka ugu dambeeyo oo sahmiga murtasiqada oo ay qaybiyaan oo jundigooda ay u qaybiyaan wejhun baa ku sugan oo leh
yacni waxba laga soo qaadi maayo oo yacni waa la burinayaa oo maxaa yeelay way xoogeysanayaan nimanku oo innaga inoo xoogeysanayaan laakiin waxaa laleeyahay haba xoogeysteena waa jundigii muslimiinta saa darteed waxa weeye maya waa sax weeyaan saa horaa raajix wamaa atlafahu wuxuu dilo baaqin ninka mucaaradka ah calaa caadilin ninka caadilkee dowladda raacsan wixii uu ka dilo iyo wa cagsuhu taa oo kasoo horjeedkeeda oo ninka caadilka ah wuxuu dilo baaqiga uu ka dilo in lam yakun hadduuna ahayn fii qitaalin dagaal dhexdii dumina waa la magdhabayaa nin oo dowladda raacsan nin qoladan kala raacsan hadduu wax ku sameeyo ama wax dhiig waajibiya ama wax dhiiga oo qofka naftiisa wax loo geysto ama wax xoolo oo xoolihiisa wax loo geysto hadduu sameeyo waa la magdhabayaa ka baaqiga ah hadduu sameeyana wuu magdhabayaa kan dowladda raacsan hadduu sameeyana wuu magdhabayaa haddii markaa wax dagaala una jirin maxaa yeele ileen dadki waa dad muslimiina weeye xoolahooda iyo naftooda iyo maalkooda yani isuma bannaan wa ilaa haddii dagaal lagu jiro oo dagaalka dhexdiisa wixii kala gaadha falaa damaana wax magdhowa ma jiro maxaa yeelay dee caadilka ka dowladda raacsan waxaa la amray qoladan inuu la dagaalamo ayaa la amray midda kale asxaabtii nabiga ridwaanullaahi tacaala calayhim ajmaciin lam yudaalib bacduhum bacdan bishayin yacni dagaaladii dhex maray markuu qaarna cali raacsanaayeen qaarna mucaawiye raacsanaayeen yacni barhkood barhka kale waxa ma weydiisanin dagaaladii yacni dhex maray markii dambe la israaciil la isu wada yimid cidina cid ma weydiisanin oo lama odhanin yacni qoladaasi waxaa ha magdhowda iyo qoladaasi waxaa ha magdhowd wa fii qowlin qowl oo daciifa yadmanu wuu magdhabi albaaqii midka mucaaradka ah wixii uu isagu geysto dagaalka dhexdiisa wuu magdhabayaa maxaa yeelay waa litaqsiirihi isagu gaboodfal buu sameeyey oo xaqii buu kasoo horjeedsaday laakiin waxaa laleeyahay ta'wiil buu haystaa ta'wiil baatila ma haysto walmuta'awilu walmuslimu lmuta'awilu muslimka oo ta'wiilka haysta bimacnaa sababka haysta uu dowladda uga soo horjeedsado oo bilaa shawkatin awoodna aan lahayn oon ciidan aan lahayn yadmanu wuu magdhabayaa wixii allaale wixii isagu uu geysto haddaba dhowr nin walmuslim almuta'awil dhowr nin ama nin iyo labo oo iyagu bilaa shawkatin bilaa quwatin awood la-aana iyagu axkaamtii buqaadda laguma dabaqayo wax allaale wixii ay geystaan way magdhabayaan wax allaale wixii ay geystaan ama dagaal ha noqoto ama yeena noqon midda kale iyaga waxaa loola dhaqmayaa haddii meelaha waddooyinka ay fadhiistaan ka qaadici dariiq mid oo waddada dadka ka goynayo oo kale ayaa loola dhaqmayaa oo gacmihii iyo lugihiiyo sidii qaadicu dariiqa axkaamtiisii ayaa lagu fulinayaa maxaa yeelay fasaad baa ka dhalanaya haddii la yidhaha nin kasta oon awood lahayn oo yidhaahda dowladda waan ku kacsanahay anigoo beertaydii bay qaadatay waxaa dhacaysa dee in fawdo meesha yacni ay ka dhacdo wa cagsuhu kaa cagsigiisu muslimka oo awoodda leh laakiin wax ta'wiiliya wax daliila aan haysanin oo le dowladdu maan ridaynaa ka baaqin isagu baaqigii buu la mid yahay kii ta'wiilka haystay ayuu la mid yahay oo wixii dagaalka dhexdiisa ku dhinta lama magdhabayo wixii dagaalka dhexdiisa wixii yacni ku dhinta maxaa yeelay macnihii kaaba oo aan loo magdhabaynin kaa hore shareecadu waxaa loo yidhi yaan la magdhabin dagaalka dhexdiisa wax ku kala dhinta waxa weeye dadka in la jeclaysiiya nabadda iyo in laysu soo noqdo oo qofkii haddii la yidhaahda intii nin ay disheen mucaaradka haddaad tihiin yacni magteedii baa laydinku leeyahay wixii maal ahaana waa laydinku leeyahay dagaalkaa ku baxay haddii la yidhaah dadku way sii fogaanayaan saa darteed soo dumid lasoo dumayo ayaa dagaalkana loogu wadayaa wixii oo dagaalada dhexdooda dhacayna aan loo magdhabayn marka kan awoodda leh laakiin aan ta'wiilka haysanin kaa naftiisu macnahaas waa joogaa dhexdiisa saa darteed waa cagsuhu kaa cagsigii oo midka awoodda leh laakiin daliil aan haysanin ka baaqin buu la mid yahay kii oo mucaaradka ahaa ee daliilka haystay ayuu la mid yaho isagana magdhabi maayo dagaalka dhexdiisa wixii dhaca wixii dagaalka dhexdiisa aan dhicinna waa la magdhabaya walaa yuqaatilu imaamku lama dagaalamayo albugaata qolada mucaaradka ah xataa yabcatha ilaa uu uga diro ilayhim iyaga amiinan qof caadil ah kaasoo fatinan oo caqli badan caqli iyo xigmad iyo siyaasad ilaahay uu siiyey kaasoo naasixan
haddana ummadda muslimiinta naasix u ah, kaasoo yas'aluhum weydiiya maa yanqimuuna waxa ay ku karaahaysanayaan imaamka ayuu u diraya. intaan dagaal weli lagu qaadin, dowladdu waa inay u dirta dadka mucaaradka ah nin sifaadka tilmaanta hadda aan sheegnay leh, nin tilmaanta aan sheegnay leh. marka koowaad amiinan, nin aamina waa inuu yahay oo caadil ah waa inuu yahay. haddana waa inuu yahay fadin, mid caqli badan oo ilan meesha waa la doodayaay, yani waxa weye lagu yaqaano xikmad iyo maaragtay hadal qiimo leh, kaasoo naasixan haddana naasix u ah dadka muslimiinta ah wanaag la jecel. marka wuxuu weydiinayaa yas'aluhu maa yanqimuun, waxa ay ku karaahaysanayaan imaamka ayuu weydiinaya. maxaa yeelay arrintaa waxaa lagaga dayanayaa cali bin abi taalib, qoladii ku kacsanayd wuxuu u diray cabdullaahi binu cabaas radia allaahu canhu. khawaarij bay ahaayeen, nahrawaan meel la yidhaahday joogeen, markaasuu u diray. markii deedna uu dood dheer ay dhex martay, qayb badan oo iyaga ka mid a ayaa deedna soo noqday oo cali bin abi taalib soo raacay. fa in dakaruu, haddaba markuu u tago hadday sheegaan madlimatan dulmi hadday sheegtaan oo imaamka ka sheegtaan, ow shubhatan ama shubho, shubhadu waxa weeyaan wax marmarsiinya ah, asaalaha wuu zuuliyaa. shubhada bimacnaa daliilka ay ismoodsiiyeen isagaa ka caafinaya. amaa madlimatan dulmi ay sheeganayaan oo waxaasana lagu sameeyo sharciga aan nalogu lahayn, sharci ahaan aan nalagu lahayn, hadday sidaa ay yidhaahdaan, iyada imaamku odhanaya arrintaasay sheeganayaane wayna caddahay, waa inaad ka zuuliso. ow shubhadu waxa weeye xagga daliil hadday ismoodsiiyeen, asaalaha wuu zuulinaya. fa in asaruu, hadday haddaba daa'imaan mucaaradnimadoodii, markii dulmigiina la zuuliyey, shuhbadiina uu ka qanciyo yidhi saad moodeen meehe daliilku sidaa ma aha. fa in asaruu, hadday daa'imaan, nasaxahum mar labaad wuu u naseexaynayaa sunnanimo. uma aadanahum, wuxuu ogeysiinayaa bilqitaali dagaal. wuxuu leeyahay deedna ogaada haddaba haddaad diideen dee waa dagaal, dowladdu dagaal bay idinku qaadaysaa. maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa faray marka hore bilislaax in la sameeyo, hay-addii qur-aanka ahayd. marka labaadna in lala dagaalamo, yani fi'ada oo dulmiga wada, yani in lala dagaalamo. fa in istamhaluu, hadday korasho dalbaan oy dhahaan hanala sugo dagaalka dhexdiisa, markuu dagaalka iclaaminayo, ijtihaada, isagaa ijtihaadaya, bimacnaa ra'yigiisa maskaxdiisuu ka shaqaysiinayaa arrintu sida ay tahay, inay maslaxo tahay in la sugiyo inaan la sugin. wa facala, wuxuu samaynayaa maa ra'aahu, wuxuu u arka sawaaban, wixii xaq u arko. hadduu u maleeyo nasugadu inay doonayaan inay isku noqdaan oo bal arrintii ay ka baaraan degaan, oo laga yaabo inuu qaarkood soo noqdo ama kulligoodba, dee waa arrin wanaagsan. hadduu u maleeyo inay ciidan urursanayaan oo dee ay doonayaan inay dagaal isu abaabulaanna, iyadana wuxuu leeyahay maya idinma sugayno. walaa marka kasoo qaad dagaalkiibaa bilowday oo nimankii waa laga xaal waayey, qaabkee loola dagaalamaya marka? walaa yuqaatilu, lama dagaalamayo markuu dagaalku dhaco mudbirahum, kooda daba jeediyey, midka carara kaala lama dagaalamayo. laakiin waa haddii koox kale uuna u tegaynin ama xeelo dagaal uuna u cararin, ee nin iska cararay oo baqday haddii uu yahay, oo calaamadaha la eegaya iyo qariinada iyo xaalku suu yahay, haddii loo arka nin iska cararay, markaa ninkaa lama dabagelayo, xabadna laguma ridayo. maxaa yeeley ujeeddadu awooddooda in la wiiqo oo daacada loo soo celiyo weeye, ujeeddadu in la laayo laga argoosto ma aha. walaa mudkinahum, kooda la jilciyey, mudkinahum, kooda la jilciyo la dhaawacay oo dhaawac lagu jilciyo aan markaa sharkiisii laga nabadgalay, oon waxba dili karin, kaana la dili maayo. wa asiirahum, walaa asiirahum, kooda la qabtana kaana isagana la dili maayo. maxaa yeeley waa likhabari lxaakimi walbayhaqiyi bidalika, wa iqtidaa'an bima jaa fi dalika kullihi bisanadin xasanin can caliyin yowma aljamal. maalinka la yidhaha yowma aljamal, ee cali bin abi taalib iyo kuwii ka soo horjeeday oo dagaalku dhex maray, ayaa intaasoo dhanba naseexo ahaan ayaa loo soo jeediyey. walaa yutlaqu, la sii dayn maayo kooda la qabto la sii dayn maayo. wa in kaana haba ahaada sabiyan ilma yar, aw imra'atan haweeneye, xataa tanqida,
ilaa ay go'do alxarbu ilaa dagaalku ka dhammaado oo wayatafaraqa uu ka kala tago jamcuhum jamacooda uu ka kala tago. maxaabiistooda la layn maayo, laakiin waa la haynayaa, meel baa lagu xanaanaynayaa ilaa dagaalku ka dhammaado mucaaradka lagula jiro, jamacooduna uu ka kala tago oo aan markaa aan la rajaynaynin mar labaad inay is-abaabulaan, aan la rajaynaynin. ilaa an yudiica qofkii la qabtay inuu isagu adeecoo yidhah war anu dowladdan raacsanahay biikhtiyaarihi, isaga ikhtiyaarkiisa inuu dowladda ku adeeco, calaamadana ay muuqdaan ina tusinayo inuu run sheegayo, ee qof walba layskama aqbalay. wa yuraddu waa la celin silaaxuhum hubkooda wa khayluhum fardahooda ilayhim iyaga idaa inqadat ilxarbu dagaalku markuu dhammaado wa uminad oo laga aamin noqdo ghaa'ilatuhum sharkooda laga aamin noqdo. waagii hore dee sida hadda dowladahan casriga ah ma ahayn oo dadku hubka iyaga haysan jiray, oo fardaha iyo seefaha iyo de waxaasa ayaa hub ahaa. oo xilliga kitaabka sheekhu uu qorayayna 800 sano ka hor sidaasay ahayd. markii nimankii mucaaradku markuu jabo wa yuraddu silaaxuhum wa khayluhum, hubkoodii iyo fardahoodii waa loo celinayaa markii dagaalku dhammaado sharkooda laga aamin noqdo. maxaa yeelay dee markaa daacadii bay usoo noqdeen, amar qaadashadii dowladda jamacoodiina wuu kala tegey, markaa dee wax dhiba kuma hayaan, markaa waxoodii waa la siinaya. walaa yustacmalu la adeegsan maayo waxa iyaga laga qaada oo fardo ama huba fii qitaalin dagaal kale, walow dagaalka gaaladaba ha noqdee loo adeegsan maayo ilaa lidaruuratin, daruuro inay timaado oo muslimiintu inay jabaan haddaan la adeegsan in laga baqa mooye. maxaa yeelay hubkooda iyagaale waa milkigoodii, saa darteed qofka milkigiisa idan la-aan in la isticmaalo ma banaano. saa darteed hubkooda ammaane ahaan baa loo haynayaa ilaa yacni waxani uu ka baaba-ayo ayaa loo haynayaa. walaa yuqaataluuna lala dagaalami maayo bicadiimin wax weyn oo kulligood wada gaadha, ka naarin sidii dab oo kale lagu gubo, wa manjaniiqin iyo wax manjaniiq la yidhaha. manjaniiqa waa waxoo maaragtay sida waagii hore laysku xidhxidhay oo dhagaxaan inta lagu rido oo saa loo soo qabta saa loo tuuri jiray, oo sidii madfac camal, haddaad googlaha ku qortaan manjaniiq oo idiin soo saarayaa sidii camal, sidii madfac oo kale hadda ayuu deedna intaasoo dhagax yani ayuu tuuraya. taa lagula dagaalami maayo. allahuma salli calaa. maxaa yeelay waxaa la doonayaa dadku inay badbaadaan oo haddii ay daacada usoo noqdaana in la laayo ujeedadu maaha, ilaa lidaruuratin, daruura inay timaado mooyeen. oo maxaa ka mid a ka an qaataluu, waa inay dagaalamaan bihi bilmanjaniiq, manjaniiqii oo hadda madfac oo kale iyo diyaaradahoo kale, waa inay nagula dagaalamaan oo waxaaduu binaa, ama waa inayna koobaan. maalan ciidankii dowladda oo kale dhan walba ay ka maraan, oo markaa in la duqeeyo mooyeen si kale aan lagaga daafici karin, markaasoo kale waa la adeegsanaya. walaa yustacaanu la kaalmaysan maayo calayhim iyaga bikaafirin, gaal loo kaalmaysan maayo. allahuma salli calaa muxamed. walaa biman duula loo kaalmaysan maayo yaraa arka qatlahum dilkooda mudbiriina iyagoo sii jeeda in la laayo. yacni gaalo in loo kaalmaysta ma aha. allahuma salli calaa muxamed. maxaa yeeley ujeedadu inagu dadkeenni inay yihiin oo dad muslimiin ay yihiin baa loola dirirayaa, oo xoolahoodi iyo naftoodii waa la badbaadinayaa awoodooda. laakiin gaal markaad u kaalmaysato de isagu wuu buufinayaa oo wax walba ayuu halaagayaa. saa darteed gaal loo kaalmaysan maayo. walaa biman qof aan gaal ahayn laakiin arka in la laaya kasii jeeda in dhabarka laga toogto, ka la qafaashayna in la dilo, ka dhaawacana in la israaciyo. qof sidaa qabana oo madhabkaa qaba sida xanafiyada oo kale, abu xaniifa oo kale, taana iyadana haddii imaamku shaafici oo kale uu yahay in loo kaalmaysto ma banaano. kaasoo kale in loo kaalmaysto isagu sidaa caqiidaysan muslim ba ha noqday, waxaa laleeyahay adigu joog, adigu waan ku ognahay madhabkaasa too dadka waad si xun baad maaragtay aad ula dhaqmaysaa. allahuma salli calaa muxamed. walow istacaanuu hadday kaalmaystaan calaynaa innaga biahlilxarbi, ahlu xarba hadday inoo kaalmaystaan oo wa aamanuuhum ay amni geliyaan oo ammaan ay u saxiixaan, lam yanfud fuli maayo ammaanuhum ammaankoodu calaynaa innaga, wanafada wuu fuli ammaankii calayhim iyaga dushooda fil asaxi qawi haddii aan qaban. hadday gaalo la heshiiyaan oy soo kaalmaystaan, gaaladaasoo dagaalka gaaladii aan kula jirnay ah,
oo ay aamin geliyaan oo gaaladii ay dhahaan ammaan baan idin siinay. ammaanka iyagu khuseeyaa oo iyagu dadka ammaanka ay siiyeen inay laayaan ma bannaano. qofka muslimka qofku ammaan siiyey inuu dilo maaha, laakiin ammaanka ay siiyeen innaga xaggeenna ma fulayo. innaga inaan layno waa inoo bannaan tahay. allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed. walow acaanahum hadduu u kaalmeeyo ahlu dimmati ahlu dimmada gaalada waddanka muslimka degan ee laga qaado magta laga qaado, waxaan ujeedaa magayaan odhanin jizyada laga qaado. walow acaanahum ahlu dimmati ahlu dimmada muwaadiniinta gaalada ee waddanka muslimka degan ayaa ahlu dimme la yidhaah. kuwaasi hadday u kaalmeeyaan caalimiina iyagoo og bitaxriimi qitaalina innaga in laynala dagaalamo ee dowladda ah inay xaaraam tahay iyagoo og, inta qada wuu burayaa cahduhum ballankoodii dowladdu ay kula jirto muwaadiniin inay yihiin oo aan la taabanin, ballankaasi wuu burayaa. marka xarbiyiin gaalada oo ehlu xarbaha sida loola dagaalamo ayaa loola dagaalamayaa, oo marka hantidoodiina waxay noqonaysaa haniimo. saasoo kalea loola dagaalamaya, maxaa yeeley iyagaa sameeyo de ballantii bay buriyeen. ow mukrahiina iyagoo la dirqinaya hadday inala dagaalamaan, oo qoladii buqaada ahayd baa waxay tiri haddaydan la dagaalamin dowladda dee waxa weeye annaga idin laynayna. falaa yantaqidu cahduhum cahdigoodu buri maayo, maxaa yeelay shubho ayaa meeshii joogta, marmarsiinyo oo dirqinta ah. wakadaa waxaa lamida oo ballantoodu ayna buraynin in qaaluu hadday yidhaahdaan gaaladii muwaadiniinta ahaa danannaa waxaan u malaynay jawaasahu waxa aanu samaynay inuu bannaan yahay, oo muslimiinta barhkood barhka kale in loogu kaalmeeyo markay dirirayaan inay bannaan tahay baan moodaynay, maadaama qayb ka mida aan la soconno. ow annahum hadday yidhaahdaan danannaa waxaan malaynay annahum iyagu qoladan buqaada ah muxiquuna kuwa xaqa ku taagan inay yihiin ayaaban moodaynay. hadday sidaa yidhaahdaan iyadana waa la mid cala almadhabi qawi haddii aan qabanno, oo ballantoodii ma burayso oo dowladdu lama dagaalamayso. maxaa yeelay liannahum macduuruun, markaa dee cudurdaar bay haystaan markaa iyada. wa yuqaataluuna waa lala dagaalami markaa iyada ah ee ay la socdaan buqaada ay la socdaan, oo sidaana cudurdaarka ay leeyihiin ka buqaatin sidii buqaad oo kale ayaa loola dagaalami, laa ka xarbiyiin oo kale yacni loola dagaalami maayo, ilan dhiigoodu waa dhowrsoonyaho waa laynaga dhowray. allahuma salli calaa. laakiin buqaada dhan walba kala mid ma ahoo iyagu wixii ay biiyaan way mag dhabayaan, laakiin buqaadu dagaalka dhexdiisa wixii dhaca inayna mag dhabaynin waa inagii soo sheegay. maxaa yeelay magdhowga buqaada waxaa loo diiday soo dumid lasoo dumayo, oo inay daacadu usoo noqdaan lasoo dumayo, laakiin kuwan iyaga gaalada ah dee wax lasoo dumaya male, oo iyagu wixii ay biiyaan way mag dhabayaan. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.